السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيرت وحنا channelkan Axmed Daarquni ku soo dhawaada muuqaal cusub. 2017 waxa uu ahaa sanad dib badan soo maray muslimiinta. Waxaana dhacay fidnooyin badan, kuwo isdila, kuwo la dilo, kuwo isgo'doomiya iyo kuwo dhulkoodii lagala wareego. Maanta waxaynu ka hadli doonaa labadii fidno ee muslimiinta ka soo gaartay dhinaca gaalada. Abu Xudayfa oo ahaa sirhayihii Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa laga hayaa inuu sheegay in fidnada derbigeeda naga xigo Umar ibn Khattab haddii uu dhintana fidnooyinka ay bilaamayaan. Haddaba musiibadii ugu horreysay ee muslimiinta soo martay sanadii 2017 waxay ahayd gumaadkii loo geystay muslimiinta Rohingya ee daga koonfurta Myanmar. wixii ka horreeyay gumaadkii lagu qaaday 2016 ilaa 2017 waxay gaarayeen in ka badan 1 milyan dadka ku nool dhulka Myanmar ee muslimiinta ah. sanadii la soo dhaafay waxa la dilay dad badan oo muslimiinta Rohingya ah waxa Bangladesh u qaxay bishii Oktoobar dad gaaraya 603 kun oo muslimiinta Rohingya ah. bishii November sidoo kale waxa soo qaxay tiro gaaraysa 23 kun oo qof. Decemberna waxa ku darsamay 1 kun oo qof. bishii November waxa lagu tiriyay dadkii Myanmar ku noolaa ee muslimiinta ahaa 400 kun. dad badan ayaa la dilay, dhulkoodii la gubay, sidoo kalena dumarkoodii la farxumeeyay. Allah waxaan uga baryaynaa in dibta uu ka dulqaado dadkaas muslimiinta ah. musiibada labaad ee soo martay muslimiinta sanadii 2017 waxay ahayd waa aqoonsashadii Qudus caasimadda Israa'iil. Israa'iil waxay cadeysatay inay dawlad tahay sanadii 1948 balse Qudus caasimadooda maysan aqoonsan, waxayna caasimad ka dhigteen Tel Aviv. 69 sano kadib waxaa loo doortay Donald Trump madaxweynaha Mareykanka. waana ninkii ugu horreeyay oo dawlad madaxweyne u ahaa ee Qudus u aqoonsada caasimadda Israa'iil. tani waxay dhacday bishii December 2017. waxaanu u mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga oo labadan musiibaba ka hadlay una digay dadkii ficilada sameeyay dawladda Myanmar iyo Donald Trump. haddaba waxaan filayaa inaan wax kaga faa'iideeyo mawduuceeni maanta. inta ka kulmi doono mawduucan lamida waxa idinkaga tagay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.